Waxaan ku dhashay caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne. Inta badan noloshaydii waxaan ku soo qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan suuqa caalamiga ah ee Bakaaraha aan u aaday inaan ka soo iibsado waxyaabo aan xilligaasi u baahnaa. Soo laabadkii aan suuqa kaga soo baxayay ayaa waxaan isku aragnay Faysal. Xilligaasi aqoon maanan isku lahayn, balse wuxuu Faysal bilaabay inuu ila hadlo. Anna waxaan dhibsaday wiil Soomaaliyeed oo ila hadlaya inaan ka aamuso. Sidaas ay tahay, waxaan Faysal inoo suurta gashay inaan si wanaagsan isku baranno. Waxaan kala qaadanay taleefannadii xilligaasi guriga inoo yaalay. Waxaan bilownay in aan ka wada sheekaysano taleefannadii guryaha inoogu jiray. Muddo kooban ayaa wuxuu Faysal iga keensaday inaan ka helo, waayo wuxuu ahaa nin aniga oo dhan i dhex qaaday. Haddii aan ahayn lahaa sheeko aan laga xiisa dhicin iyo furfurnaan cajiib ah. Ku dhawaad sanad markii aan Faysal wada soconay ayaa wuxuu maalin maalmaha ka mid ah iga codsaday inuu i soo baro qoyskiisa oo uu ka dhashay. Anna waan ka codsaday, bacdama uu ahaa nin aan jecelahay, isla markaana waxaan horay u dhiganay ballan iyo axdi. Faysal ayaa wuxuu maalintaasi uu i soo baray hooyadiis oo bashaash ahayd iyo carruur kale oo la dhalatay. Hase yeeshee, xilligii aan guriga ka soo baxayay ayaa waxaa yimid Faysal aabihii oo ahaa nin lacag leh, isla markaasina halkaas laygu baray. Faysal aabihii oo aan doonaynin inaan halkan magaciisa ka sheego ayaa 2 cisho kadib i soo wacay, wuxuuna igu dhahay waxaad tahay gabar yar oo cajiib ah. Wuxuu intaas ii raaciyay inaan ahay gabar fantastic ah. Intaan qoslay ayaa waxaan ku yiri adeer waa caadi. Saa intuu carooday ayaa wuxuu si qaylo leh igu yiri na adeer hay dhihin ee macaanay dheh. Xaqiiqdii waan naxay. Waxaan ku dhahay soo ma tihid gacaliyahayga aabihiis. Intuu mar kale caroodo ayaa wuxuu igu dhahay ha ku riyoon in uu wiilkayga ku guursado ee ogow anaa ku guursanaya. Haddaad taasi ogolaato, ogow waxaad noqonaysaa naag lacag leh. Aad baan ula yaabay hadallada uu ileeyahay. Anigoo la yaaban ayaa telefoonkii ku jaray. Hase ahaatee, ninkii ma aha nin quusanaya, ileen waa nin ay dhab ka tahay. Intaan carooday ayaa waxaan garwaaqsaday inaan arrinta Faysal u sheego. Faysal ayaa intaan wacay si hoose u weydiiyay inuu aabihiis caafimaad qabo iyo in kale. Wuxuu ii sheegay inuu yahay nin caafimaad qaba, isla markaana nin howlihiisa shaqo kala dabaraya. Intaan yaabay ayaa waxaan u sheegay sidii ay wax u dhaceen. Hase yeeshee, Faysal oo aan ka filayay inuu arrinkaasi ka dhiidhiyo ayaa wuxuu igu dhahay waa caadi taasi, aniga iyo aabbahay ninkii calaf kugu leh ayaad la hooyanaysaa. Wuxuu igu celiyay mar kale inuu aabihiis ileen sheekaysan karo waa haddii uu doono. Intaan ka carooday hadalka uu Faysal ileeyahay ayaa waxaan garwaaqsaday in aan dib dambe oo la hadlin. Kolkii hore waxaan la yaabanaa halka uu odayga ka soo helay telefoonkayga, tii oo ay ii dheerayd hadalkii yaabka lahaa ee ugu yiri Faysal. Ugu dambeyn waxaan soo xaqiiqsaday in Faysal iyo aabihiis ay iska warqabeen oo uu Faysal doonayay oo qura ah inuu ii shukaamiyo aabihiis si uu ii guursado. Hadda waxaan ku noolahay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Daawadow, maxaad igula talinaysaa?